nolosha maanta aynu joogno xilligan hadda aynu joogno dadku waa saddex nooc. dadna way fadhiyaan waxay ka tashanayaan diinta Ilaahay siday wax ugu qaban lahaayeen, caqligoodii, fikirkoodii, dadaalkoodii, cumrigoodii bay iskugu geeyeen. qolo kalena waxay waqtigoodii iyo cumrigoodii iyo dadaalkoodii iskugu geeyeen ay hadda u fadhiyaan sidii diinta Ilaahay ee adduunka uga tirtir lahaayeen. qolada kale saddexaad waxaa weeye waa qolo iyagu fadhi ku dir way hooshooda inay meel iska fadhiyaan, halba qoladii guulaysato bay u sacabatumayaan oo ay raacayaan. ilmahan iyo ardaydan quraanka Ilaahay baranaysa ee quraanka Ilaahay xifdinayso waa dadka calanka islaamka qaadi lahaa wey. waa dadka diinta Ilaahay dacalada adduunka inay gaarsiiyaan dadkii loo diyaarinayo wey. dadka iyaga marka waqtiga lagu bixinayo waalidiintii ay daba taagan yihiin mar walba waa inay ogaadaan in islaamku iyo diinta islaamkaba ay idinka sugayso waqti iyo fikir iyo dadaal oo dhan inaad isugu geysaan. waalidkana waxaa laga doonaya ilmahaas dadaalayo khayrka u go'ay, khayrka raba inuu faafiyo, khayrka raba inuu barto, iyagana waxaa laga doonaya mar walba wixii tala iyo waano iyo caqli celin inay siiyaan.